بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي waa mahadle guddiga doorashooyinka waxaanu idinku yeedhnay maanta inaanu idinka mahadnaqno anoo ku hadlaya afka qaranka dhammaan ummadda reer Somaliland inay idinka mahadnaqayso sidii wanaagsanayd ee doorashada maamushay waxaanu idinka mahadnaqaynaa oo qarankiinu idinku mahadnaqayaa dhibaatadii soo jeedkii culayskii intaa leeka eed u dhowr adeegteen iyo in dadkii baratamayey ee 900 ku dhowaa dhammaantood kii soo baxay iyo kii aanay tirin Twitter lagu soo baxay gaarima ay raalli ka ahaayeen garsoorkii aad samayseen iyo saa u shaqayseen waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa idinkana qarankiinu waa abaal iyo mudnaan u idin ogi meel joogtaanba waxaana muujisay xilkasnimo aaminaad iyo hawlkarnimo ilaahay hawlaha dambana isku guuleeyo waxaa qaranka iyo anagu waan ku ducaynaynaa cimri dheer caafimaad aakhiro san iyo ifsan inta ummadoodan haysan doonay maanta inay soo gaarsiiyaan waa inta waana inta ugu weyn ee bini aadmi mujtamaciisa oo ka helo inuu mahadnaqo inuu u qira wuxuu qabtay inuu wax weyn qarankiisa u qabtay hawsha maanta aad qabateen guusheeda waa ladina leeyahay waxaa idinla leh xafiiska doorashooyinka ilaa maalintii aynu u dareeray doorashadii ugu horreysay dastuurka ilaa taa maanta ah dad kastoo hawshaas soo qabanayay wuxuun bay kordhinayay waxbaa la saxayay qolo waliba dhibaatada ka hor timaada sida loo saxay qolada kale u gudbinaysay culayska u badan wuxuu ku dhacay baa laga yaabaa qolooyinkii doorashada u horreeyay galay ma kuwii laba dadkeenu shacab ahaan aqoon-yahan ahaan axsaabta siyaasiga ah waxaa loo bislaanayay doorasho walba dhibaatada aynu la kulnaa inayna dib inoogu dhicin waxaanu ka dareen qabnay doorashooyinka hore dhibaatooyinkii ka dhacay inaynaan ku celin qaladkeenna hore xataa qofka caadiga ah ka siyaasiga ah ka sharaxan xisbiga publica qof waliba wuxuu ku dadaalay qaladkaynu kala hore galay ama tii kasii horeysay doorashada hore inaynaan ku celin taasina waa ilaahay mahadii in dadkeenu wacyigaa qaadanayay ka tartamaya ka xisbiga ah ka suuqa jooga ka cod ka bixinaya inaynu wacyigaa wada qabno iyaynaan ku noqono wixii dhacay aynu ka gudubno waxaana taa wanaajiyay markaad idinku komishar ahaan qaladaadkii hore ka baydheen qaladaadkii hore ee laga wada baqayay markaa ka baydheen oo maxaa samayseen waxaad tidhaahdeen goobta ha lagu yeedhiyo si aan mashkiladu u weynaanin boroskaasaa wax soo kordho qurux ahaa degmada ugu yeedhi haddii wax dhacayaan degmadu xalisho markaa dhibaatadii meelo fog lagu xalilaya laakiin haddii sidii aanu yeeri jireen caasimadda lagu soo ururiyo shakiga iyo buuqa iyo halkii la isku yimaado halkaa isaga abuurmaysa markaa taa Somaliland oo dhan baa ku ammaanan waa progress aynu samaynay waa inay madaxtooyadu sidaas lagu kortaa waa inay wasiiradu u koraan waa inay jaamacaduhu u koraan waa inay xisbiyadu u koraan waa inay baaxmisharku u koraan waa inuu dhammaanteen saa u koraa oo qalaad kale ka baxna waa tusaale wanaagsan oo muujiseen waxaa kaloo loo mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay doorashada si toosa iyo si dadban inay doorashadaas yar gasho oo kow ay ka tahay xukuumadda qaybta qaabilsan amniga iyo qaybta qaabilsan dhaqaalaha labadaa hay-adood waxay xoog u geliyeen dadaal intaa geliseen in ka badan inay doorashadaas yar gasho wasaaradaha dhaqaalaha qaabilsan oo isu dhan iyo wasaaradaha nabadgelyada qaabilsan oo dhanba isugu tegey iyaguna xilkoodii si fiican bay ugu soo baxeen waxaa la mid ahaa wasaaradaha wacyigelinta qaabilsan iyo warbaahinta madaxa bannaan ee qaranka oo u shaqeeyey si wadannimo hadday tv yihiin hadday yihiin websaadyada dhalinyarada hadday yihiin yacni Somaliland qof kasta contribution geystay weliba wacyigelinta hadday maxay ahayd social media yihiin dhalinyarada hadday tviyada madax bannaan yihiin iyo kuwan kale waa markii u horreysay wacyigelinteenu midowday kuwii qaranku hayay
kuwii qofka inanka yaro gaarka lahaa kuwii tiifiyada ahaa waa marka qura loo wada adeegay wanaagga uu ku dhammaanayso doorashadaas intaana waa u mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa shaqaalihii ka shaqeeyey doorashooyinka ee idinku dirsateen ee u badnaa dhalinyarada jaamacadaha mar walba marxaladdaa doorashada dhalinyarada jaamacadee ku soo beegmaa waa qolada qura ee mar walba xilkooda u guto si wadanimo oo daacada ilaa tii ugu horreysay ilaa tii u dambeysay ardaydaa jaamacadee la hawlgeliyo ee wakhtigaa ku soo beegantaa kuwii hore iyo kuwa dambaba aad bay u mahadsanyiin da-yar culayska intaa lagu horeeyo deegaanna aan ku odahan la geeyo waa wax ilaha lagu mahadiy hargeysaan kormeeray 4-5 goobood baan maray horta intaba hablaha ka ahaa guddoomiyo waan ku farxay hablo yaryar waxaan malayaa 80% reer Hargeysa ma ahayn badankooda lascaanood bay ka yimaadeen waxna wax ilaha lagu mahadiy waa isdhexgal bulsho qofka dhalinyarada ah ee magaalada intaa leeg populationkeeda la keenay doorashada ee inan yara 12 saacadood fadhiday ee ku ilaalinaysay ee meeshii ay joogtay aanu qalad ka soo bixin iyagana waynu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka ee mucaaradka xisbiyada mucaaradka maxaynu ugu mahadnaqaynaa waxay afrika isku dishaa mucaarad mar walba fawdo iyo buuq iyo dagaal wada waxaanay ku dhacdaa mucaaradku wuxuu haddii uu aaminsan yahay inay xukuumaddu wax ka boobeysa wax kala jeesayso soomaalida waxay tiraa doob tuhun baa dilay ninka doobka la yidhahda tuhun baa dilay axsaabta afrika mar walba mucaaradka tuhun baa dilaa waa lagu dhacaya waa lagu sharaya waa la qaadaya laakiin annaguna kulmi ahaan iyo xukuumadda waxaan ku dadaalnay inaanu xisbiyada ku qancino waxaa doorashadaas inay dhex noo tahay iyagana way ku qanceen waxaad ka garanaysaan waxaa la wada dirayay fariin isku mid ah ayay xisbiyo dirayay halkii ay xisbi iyo waa ay wax abuurtay waxa la abuurayay nabadgelyo ku doorta kii doortaaba waa Somaliland qaranka ka weyn message-ka isku midka ah ee xisbiyada ka baxay saddex xisbiga aad iyo aad bay ugu baatay waliba qolada mucaaradka waxaynu mahadnaqaynaa codbixiyaasha oo ajnabigii soo maray dalka oo dhan ku tagaba ay garan waayeen madad ciid tukanayo oo ciid dabaal degaya mise waa dad doorasho galay nimanka afrikaano badan baa yimid oo qoraaya oo madaxweynayaala oo wariyaala waxay la yaabaan afrikaanku ciidamo la kala xiga labada xisbi codanaya ciidamo ay la kala xiga xataa malaa dawladaha horumaray waxay ku calaamadiyaan xisbi walba dhanba isugu baxa saf lagu wada jiro saddexdii xisbiga waa isku mid ah oo kale anigu waxaan u codeeyay ucud anigu waxaan u codeeyay kulmiye anigu waxaan u codeeyay wadani oo iska sheekaysanaya oo rabsi dhex jooga oo inta u tagaan adiga codeynaysa wadani adiga codeynaysa kulmiye waa wareereenba يعني واحد على الماضي هو بيصير شيء بكنا يقرأ ما هذا قلنا أديات بمهتين وحنا ما هذا قلنا عيد كستوى نجتها غيرتي رقالة ترى مورا دعوة دولة كسته شعب كسته قف كسته قاعد قف كستوى تاجري أما نقول سوهم بديجي دور شراسي ونوم وشيء دري كان ونوم هذا قلنا وحنا ما هذا قلنا ضمان شعب وينها سومالي مركز تبع شوه oo si isku niyada arinta uu hawlgalo idku taageeray oo nagu taageeray waan mahadnaqaynaa maanta waxaan u yeeray waa inta inaan isku mahadnaqno idin kala aan soo gaarsiino fariinta mahadnaqa ah iyo abalka la yiraahdo xukuumadahan waxa ay xisbiyahan waxaan goosanay in shahaado sharaf la siiyo waxaan ka codsanayaa haddaad tihiin toddobadan xubnood maanta chance-ka aan isla kulmay inaad dhistaan oo soo diyaar garaysaan maxaa challenge inuu hor yaallay maxaynu kaga baxaynaa qaran ahaan commissionka qaranka sidee loo xoojinayaa maamulkiisa ismihiisa taabarkiisa fishankiisa idinku beritaa ka tegi doonta shacbiga reer Soomaaliya waxaan farayaa inay halkaa ka saayaan wadanimadooda qarannimadooda inay guushaas sii wadaan markuu qalbigeenu midooba markaynu wax wada leeyahay markaynu hoo iyo hoo isnaahnaba hore noo sii marayna markaynu khilaaftano dib aynu dhacayna shacbigana waxa la nabada iyo wanaaga la sii adkeeyo shacbiga waxaan u bushaaranayaa sidaan ku talagalay haddii alla yiraahdo doorashooyinka haray ee meeyarada iyo golaasha deegaanada
meeradii ku-xigeenadooda la dooran doono iyo xubnaha loo dooran doono chairmanka baarlamaanku ilaahay idankii inay ku dhammaan doonaan nabadeeda iyo sharafta iyo midnimada iyo walaal adigu qaado iyo walaal adigu qaado taasaan ku shaqeynayaa inaynu helo iyadana waynu arrintaasi xisbiyadana taasaynu soo jeedinayaa waanay u dhowdahay ilaa haddana wax khilaafaadoo xisbiya iska hor imanayaan ma aynaan arag iyadana waa laga heshiin doonaa si qabow oonay xisbiyadu u abuurin tartan cunf ka hor yimaada ayaynu u dhammayn doonaa oonay naga shaashoobin wanaaggii aynu doorashada ku soo gallay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dee maanta kulankeenu intaasuu ahaa waana mahadsantihin wasalaamu calaykum raxmat